وأنا سيدا فنانتي أيوة عرّا صاري بسبب له لحد ورسالة ملبي دكتور دكتور فريدة ضد قاع مع حسنو وحي أنت هاي سيدتكم ملانا بي وما balse daawadayaal intaan u guda galin barnaamijkaas oo faahfaahsan iyo guud ahaan wixii ka dhacay showga xalay ka dhacay dalkaasi Faransiiska gaar ahaan magaalada Paris iyo dhaawacyada soo gaaray Faraxiye Kabayare iyo fanaanada kale ee lagu magacaabo Faadumiina halkani waa Glangal News in haddii aad ku cusub tahay walaal channel-kana ay tahay markii kugu horeysay aad aragto fadlan subscribe saaro oo meesha gaduudan click sidoo kale gambalaalka xagga ka xiga waxaan ka codsanaynaa inaad dhag siiso si aad ula socoto muuqaalada iyo barnaamijyada aan baahino una noqoto daawadaha ugu horeeya ee dhageysta barnaamijyada aan ku baahino halkan waa Glangal News oo ka heshan wararkii ugu dambeeyay gudaha dibadda maanta barnaamijkeena wuxuu noqon doonaa showgii xalay ka dhacay dalka Faransa ee caasimadiisa Paris ee fanaanada Faraxiye Fiska iyo fanaanada Faadumiina oo isku bedelay show dagaal ah waxa kale oo la sheegay in lagu dhaxdilay lagu wiil showgaasi laakiin ma caddo warar xaqiijinaya in lagu dhaxdilay fanaaniin labada wiil waxa kale oo jirtay in fanaanada Faraxiye Fiska Faadumiina dhaawac ka soo gaaray showgaasi laakiin markii ugu dambeysay waxa kala baxay meesha booliiska halkaas showga ilaalinaya hotelkaasi laakiin fanaanada Faraxiye Fiska iyo Faadumiina ayagoo ka hadlin arintaasi ayay iraadeen shacabka reer Faransa waa u mahadcelinay sida ugu soo qayb galeen showgeena muuqaal yar ay soo duween ay baraha bulshada ku fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka waxaa si sharaf leh idinka codsanayna channelka subscribe saartaan gambalaalkana aad furtaan si aad u heshaan wararka ugu dambeeya halkan aan kusoo gudbino muuqaalkana like saar waad ku maasan tahay daawashada aad daawanaysaan barnaamijyada halkan aan kusoo gudbino laabasho wanaagsan fanaanada Faraxiye Fiska iyo fanaanada Faadumiina ayaa haweenkii xalay show ku dhigtay dalka Faransiiska ee caasimadiisa Paris showgaasi ayaa ku bilowday si degan waxaana ka soo qayb galay dadkii jaaridii ku dhaqnaa dalka Faransiiska ee caasimada Paris markuu showgaasi si wanaagsan ku soo dhaco markii uu marayay qaybihii ugu dambeysay showgaasi ayaa waxa ka dhax bilowday qas iyo foodo waxa la sheegay in lagu dhaxdilay laba wiil sida la sheegay laakiin ma cadda xaqiiqad taabanaysa in lagu dilay labadaas wiil laakiin baraha bulshada ee Soomaalida ku kulma sida Snapchat-ka Facebook-ga waxa la dhaxwaday in lagu dhaxdilay laba wiil showgaasi fanaanada Faadumiina iyo fanaanada Faraxiye Fiska ayaa sanadka 2020 sida loo galay showyo ku dhiganayay dalalka qaaradda Yurub waxayna ka soo bilaabeen showada inay ku dhigtaan dalka Ingiriiska ee caasimada London ee halkaasi ay degan fanaaniintani waxayna ku xujiyeen dalka Sweden waxayna ku dhigtay show aad u weyn waxaana ka soo qayb galay jaaliyada ku dhaqneed ee caasimada Sweden showgidaasi ayaa ku soo dhamaaday si degan laakiin showgii xalay ka dhacay Faransiiska ayaa ahaa show aad u foolxumo badan waxa isku dhex dagaalay Soomaalida deganay dalka Faransiiska sida la sheegay fanaanada Faadumiina ayaa laga dhigtay jaakadii ay wadatay waxaana qaatay ciyaal ka soo jeeda dalka Djibouti sida inoo sheegeen dad goobjoogyaal halkaasi showgaasi ku sugnaa ma aha markii ugu horeysay in fanaan Soomaaliyeed showgiisa la qasfo Soomaalida waa lagu yaqaanaa dhibka iyo foodada waxaa jiray showgii ka dhacay 2018 haweenka sanadka haweenka ciida ee 2018 show uu ku dhigtay magaalada Muqdisho fanaanka Suldaan Seeraar oo lagu dhaawacay hal qof markii qof askari ah oo ku dhex tuuray showga dhexdiisa ee biskoolad qofkaasna ku dhacday waxa kala jira show uu ka dhacay dalka Germany ee dhigtay fanaanada Faraxiye Fiska gaar in lagu dhex garaaco showgaasi fanaanada Faraxiye Kabayare mar ay diiday in showgaasi dhigto mar ay soo daashay waxaana showgi ku soo dhigtay magaalada Hargeysa ee halkaasi ku sugnayd hal bilood waxa kala jira show kale oo ka dhacay dalka Germany ee dhigtay fanaanada Hani UK oo
lacagtii showgii ay ku dhigaysay la dhumatay markii ay diiday in ay u heesto shacabka kasoo qaybgal showgaasi markii ay qaaday ilaa 2 heesood ee markaasi kadib ay dhahdo mar raba showga waan baxaya. markii dambe lacagtii waxaa ku dhigay Shiino Culey oo ayada balamiyay in show ku dhigto dalka Germany. Shiino Culey ayadana way isku dhaceen markii showgaasi uu ku dhamaaday si qas ah. Soomaalida fooda kama dhamaato show walba oo la dhigay qastaan ay ku sameeyaan. dagaal waxaa jira ka dhaxeeya fanaaniinta reer London sida Faadimiina iyo fanaanada Faarax Kaftan oo isku dhacay oo loo yaqaan bulshada isku dhaxaystay. waxaa kale oo jiray sanadkii 2018 oo ilaa heer gacan la gaartay fanaanada Faadimiina iyo fanaanada Xaabakiin oo loo ogaa Xaabakiin in gujiga dhaawac laga gaarsiiyay. wixii ku soo kordhaa wararka naga imaan dalka Faransiiska ku saabsan ee dagaalka ka dhacay showga Farxiga Fiska iyo fanaanada Faadimiina. dagaalkooda ayaa la sheegay isla markaana fanaanka iyo fanaaniinta kale ee magaaladaasi Germany ku dhigtay showga isla markaana sidoo kale la sheego inay wadamada reer Yurub ay ku qabtaan bandhig faneed ayaa la sheegay inta badan in soo food saarto caqabado uga imaanaya dadka ay goobaha ay joogaan ay ku tagaan. arinta kale sida la yaab kale ku dhacday waxay tahay in fanaanada Faadimiina iyo Farxiyo Fiska xalay aro ka dhacay meesha la yiraahdo wadankaasi Brazil Faransiiska in la sheegay inuu ka soo gaaray qasaare xagga jirka ah sidoo kalena uu soo gaaray dhaawacyo waaweyn oo ka muuqda jirkooda. waxa la sheegay sidoo kale dad aan la xiriirnay oo ku sugan dalka Faransiiska in loola cararay isbitaal isla markaana booliisku oo goobta soo gaaray sidoo kalena markii booliisku halka yimid uu ka qaaday dad dhaawac oo kale isbuurtay. arrimaha kale oo halay ku hareereysnaa showgani ay qabanaysay labada fanaan ayaa la sheegay sidoo kale inay wajahday carqalado badan oo uga imaanayay dadka qaarkood isla markaana reer Djibouti dad ka soo jeeda ayaa la sheegay inay carqaladeeyeen showgan oo isla markaa diidanaa in showgaasi loogu qabto magaaladaasi. waxay sidoo kale dadkani ku doodayeen in laga qabto magaalada Djibouti show Farxiyo Fiska iyo Faadimiina maadaama ay yihiin kuwa ugu cadcad fanaaniinta Soomaaliyeed ee reer Britain. labada fanaan ayaa waxaa laga codsaday inay tagaan wadankaasi Djibouti ee caasimadda Djibouti halkaana ay ku qabtaan show isla markii ay showgaasi ay ka biyadiideen ayaa waxaa la sheegay dhalinyaro reer Djibouti inay ku bilaabeen meeshii fadqalalo iyo sawaxan isqabsaday goobta. arinta kale ee sida la yaab kala noqotay waxay ahayd markii dadkii goobta joogay ee ka soo qayb galay showga aysan fartaagan aysan waxba ka qaban labada fanaan ee Soomaaliyeed showgoodii. fanaaniinta Soomaaliyeed ayaa inta badan iskala hor yimaada caqabado noocan oo kale ah. waxaad barnaamijka ka daawanaysaa in kala socdo daawadayaal waa Galangal News. haddii aad ku cusubtahay channelka inta markii kuugu horeysay waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe saarto. hadda markaad subscribe saartana wax nin weyn loo tilmaamo ama gabar Soomaaliyeed oo sidaan u ege calaamada gambalelka dhaksi qarash ma ahan. muuqaalka sidoo kale like saar sheertana faafi waa ku maasantahay daawashadaada iyo Galangal News. waxaad ka heshaan warar idin raali geliya iyo sidoo kale barnaamijyadii ugu dambeeyay ee bulshada dhexdeeda. Galangal News kala soco markasta kana dhigo weelkaaga. halkani waa Galangal News oo ku maasantahay daawashadaada iyo muuqaalka sida ula socotay.